السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو wanaagsan dhammaan asxaabta nagu xiran waxaan muuqaalkan ku faahfaahin doonaa isla markaana ku falanqeyn doonaa arrimaha kaysaska la xiriira iyo guud ahaan shuruudaha laga rabo waxa aad ka qisoonayso ama kayskaaga sidoo kale warbixintan waxay iftiiminaysaa isla markaana diiradda saaraysa guud ahaan dadkii horey wax u maray ee interviewga ku dhacay iyo sidoo kale dadka cusub ee raba inay safarka dacwadooda hadda bilaabaan wana muhiim arrimaha kaysaska la xiriira haddii ay ahaan lahayd shuruudaha kayska looga baahan yahay iyo waxyaabaha ay muhiimka tahay inaad iska hubiso aan ku horumarnay ee case marka la yiraahdo waxa ay ka micno tahay xaalad gaar ah oo aad wajahday ama particular situation waxa loo yaqaan si guud qoyskiina ha u qabsato ama si gaar ah ku qabsatee wana muhiim in case-kaagu ku jaango'an yahay guud ahaan shuruudihii laga rabay in case laga helo tusaale dhimasho dhaawac afduub kufsi guur qasab ah takoor hanjabaad khasaare hantiyeed iyo wixii lamid ah aan horay u sii soconne case-ku waa inuu hordhac iyo gunaanad leeyahay ama waxa loo yaqaan head iyo conclusion tusaale hadalka marka aad bilaabayso waa inuu noqdaa hadal arar ama hordhac leh maxaa yeelay adduunka kama jirto sudden accident marka case laga hadlayo sidaa darteed waa inay series of histories noqotaa waxa aad ka hadlayso sidoo kale case-ku waa inuu noqdaa mid adiga ka hadlaya maxaan ula jeedaa adiga ka hadlaya marmarka qaar waxaad arkaysaa qof case-ka iyo qisadiisuba ka kooban tahay aabbahay ama hooyaday waxa uu ku dhintay ama ay ku dhimatay dagaaladii sokeeye nolol adag ayaan ku soo koray ama ay u qoran tahay in dalkiisu dagaala ka jiraan waxbarasho iyo shaqala'aani ka jirto ama si kale aan u dhigee qof ayaan isku dhacnay yacni dagaal afka ahina dhex maray intaa kadibna waan cabsaday waana soo cararay si aan dhibaato laygu geysanin waana tan keentay inaan qaxooti noqdo haddaba kayskani ma ahan mid adiga kaa sheekaynaya ama kaa turjumaya laakiin waxaan oran karnaa waa kays ka sheekaynaya xaaladda dalkaagii iyo dhibaatada ka jirta waana tan inta badan keenta in lagu yiraahdo kayskaaga kuma aanu qancin sidoo kale waxaa muhiim ah in kayskaagu yahay mid xiran waxaan ula jeedaa waa inuusan lahayn dulduleelo badan maxaa yeelay mar walba oo sadarku ama sentencesku furan yahay waa mar walba oo su'aalo aadan filanayn kaaga soo bixi karaan tusaale guri ayaad ku hoyataa ka waran haddii guriga aad ku hoyato uu leeyahay godad ama dulduleelo waxa ku jira aadan ogeyn khatar intee la-eg ayaad ka filan kartaa waxaa sidoo kale muhiim ah in kayskaagu u muuqdo xaqiiq ama qiso dhab ah oo kugu dhacday maxaan saas kuu leeyahay qofka aad u warramayso waa qof loo soo carbiyey ama loo soo talingareeyey in qisada ama kayska aad ka sheekaynayso yahay mid xaqiiqda u dhow oo la rumaysan karo iyo in kale kaysku waa inuusan ku badnayn waxa timestamka loo yaqaan ama si kale aan kuugu dhigee saacadaha maalmaha usbuucyada iyo bilaha taasina waxay kaa saacidaysaa in kayskaagu noqdo mid isu dheeli tiran sidoo kalena noqdo wax aad maarayn karto ogowna mar walba oo kayska dateku ku bato waa mar walba oo ay kugu adkaan doonto inaad kayska maarayso sidoo kale kaysku waa inuusan noqon mid horay loo isticmaalay maxaan sidaas kuu leeyahay waxaad marmarka qaar arkaysaa kaysas isu eg oo waxa ay ku kala duwan yihiin keliya tahay magaca waana arrin wax ka qabashadeedu adag tahay haddiiba ay kula soo gudboonaato sababtoo ah waxaad u muuqanaysaa qof xogtiisu koobi tahay oo aan lahayn qiso dhab ah oo isaga u gaar ah waxaadna ogaataa guud ahaan caalamka dadka ku nool oo lagu qiyaaso 8.1 bilyan wax ka badan haddii qof walba la yiraahdo qisadaada ama historygaaga ka sheekee waa adag tahay in exactly la helo laba qof oo isku qiso ah sidaa darteed waa in kayskaagu yahay mid ka madax bannaan copyright waa in kaysku leeyahay sababayn ama waxa loo yaqaan reasoning haddii aan kuu jilciyo sababayn waxaan ula jeedaa caalamka lagama yaqaan kamana jirto standard case aan wax reason ama sabab ah lahayn waxaad arkaysaa dadka qaar ku leh waalid walaal ama qof ehelkayga ah ayaa la dilay ama la dhaawacay haddana aysan kayska dhexdiisa ku caddayn sababtu marka waa muhiim dhacdo walba oo aad ka qisoonayso inaad raaciso sababta ka dambaysay ugu dambayn waxaan guud ahaan bulshadeenna meel iyo waa ay joogaanba u rajaynaynaa guul waxaana mar walba naga go'an inaan bulshadeenna u soo gudbinno kana haqabtirno arrimaha xasaasiga ah ee dareenka bulshadeennu ku fogan tahay wixii talo ama tusaale ah waxaad noogu reebi kartaa qaybta commentiska fadlan haddii ay tahay markii ugu horreysay ee aad soo booqato janalkeenna waxaa naga xasuusin ah inaad muuqaalka laygarayso siina sheergarayso si uu meel fog u gaaro dadkuna uga faa'iidaystaan hana hilmaamin inaad subscribe tiraahdo si xogaha aan janalkan ku soo gudbinno aysan marna kuu dhaafin intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waa walaalkiin saacid xaaji aadan oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu